waxaa maanta madaarka Cigaal International Airport ee magaalada Hargeysa si diiran loogu soo dhaweeyay wasiirkii hore wasaaradda xanaanada xoolaha iyo warfaafinta ee Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Cabdilaahi Maxamed Daahir Cukusi oo in muddo ah safar dalka dibadiisa ugu maqnaa waxaana soo dhaweynta mas'uulkan ka qayb qaatay wasiiro agaasimayaal xildhibaan maayirka caasimadda iyo dadweyne aad u tiro badan soo dhaweynta ballaadhneed kadibna waxaa safarkiisan muddada wadanka kaga maqnaa ka warbixiyay Mudane Cabdilaahi Daahir Cukusi waxaana hadaladiisii kamid ahaa waxaan si guud u salaamayaa shacbiga Jamhuuriyadda Somaliland oo wada dhan madaxweynaha Jamhuuriyadda Muuse Biixi waa garan kartaan oo anigu muddada yareedan maqnaa waxbarashaan u maqnaa laakiin intii aan halka joogay waxaan ku dadaalay inaan ka mid noqdo dad fara badan oo ka shaqeynayay in dadka jaaliyadda dalka Ingiriiska jooga ay midoobaan intii doorashooyinka ka dambeysay wax badanina way suurto gashay had iyo jeerna khilaafyada iyo waxa la sheego waxa laga yaabaa inta badan inay buunbuunin tahay laakiin dadku wax ay iska afgaran waay karaan oo buurani ma yaalo waxyaabaha asaasiga ah oo dhan dawlad iyo mucaarad iyo shacab iyo ummaddu way isla wada ogashahay nolosha caadiga ah baanay ka mid tahay in ra'yi markuu jiro ra'yi kalena jiro wax la dhibsan karo oo la bixidsan kara maaha waxay inagu dhan uga soo wada jeedaynaa midnimada ummadeenna taageerada qarannimadeenna dawladeenna hirgelinta nidaamkeena dimuqraadiyadda iyo tartanka axsaabta badan iyo ta ugu qaalisan oo ah nabadgelyada nabadgelyadana waynu ku soo shaqaynaynay 28 sannadoodba dadaal dheer maynan ku hungoobin ama khasaare kama joogne nabadgelyada waxaynu ku dhidibnay dawladdaasi aynu arkaysaan quruxdeeda qofkuna markuu gudaha joogo had iyo jeer inuu naaxay iyo inuu dhuubtay isma gartee qofka dibadda ka jooga arka Somaliland marka dibadda u wada baxdo ayaad midabkeeda quruxda badan arkaysaa si kastaba ahaatee warar hoose ayaa sheegaya in mas'uulkan maanta lagu soo dhaweeyay madaarka Cigaal International Airport ee Hargeysa loogu yeedhay xil afayeenimo uu ka qaban doono xisbiga talada dalka iyo kulmiye walow isagu sheegay inaan wax wara ka haynin waa Maxamed Andar telefishinka caalamiga ee CNA magaalada Hargeysa.